أهلا وسهلا بصاحبي waxaan eegi doonaa haddii aan la idmo qaabka ugu fudud ee barnaamijka Kuubuga qof macmiil ah oo meherad wax ka iibsanaya wax looga iibin karo isla markaana discount loogu sameyn karo marka qaabka qofka macmiilka wax looga iibiyo lacagtana looga qabto discountna loogu sameeyo ayaan videogan haddii aan la idmo ku baranaynaa lesson-kan waa lesson-kii sideedaad ee barnaamijka Kuubuga waxaan tegi doonaa si aan wax uga iibino qof customer baynu tegi doonaa dan waxaan tegi doonaa enter sales receipt oo ah daaqada lacag qabashada isla markaana wixii sales ah laga iibiyo okay click ma siinayna click markaan siino halka waxaan soo qabanaynaa qofka magaciisa ka soo qabanayna sidoo kale waxaan ka iibinaynaa arigeedi ma wax ka iibinaynaa oo qof kamid ah macaamiisha meherada wax ka iibsata ninkaas wax ka iibinaynaa dan waxaan sameynaynaa numberadiisa iyo contactigiisa oo dhan waa fadhiisin karnaa oo magaciisa kaliya qoran karnaa maadaama uu one time customer yahay macaamiil hal mar wax laga iibsanaya okay baa leenahay okay markaan okay nidhaahno dan nidaamka qofkan lacagta looga qabtay cash weeye lacagta cash ahaan baa looga qabtay waa iibkii labaad buu noqonayaa ama iibkii koowaad buu noqonayaa ee meherada wax laga iibiyo okay qofkana laga iibinayaa okay halkan waxaan tegaynaa itemka oo ah alaabta qofka laga iibinayo saaran qofka wuxuu doonayaa inuu laptop iibsado saaran ganacsigeena wuxuu ka shaqeeyaa laptop marka laptop Dell ah ayuu iibsanayaa laba laptop buu iibsanayaa okay laptopka Dell-ka ah description-kiisa waa kan RAM-kiisu waa 16 weeye waa 16 GB waana 512 GB buu noqonayaa okay laba xabo iibsanayaa marka xabadii waa $250 bay noqonaysaa okay marka la isku dhufto $500 bay noqonaysaa okay sidoo kale wuxuu iibsanayaa HP buu iibsanayaa HP laptop buu iibsanayaa okay HP wuxuu noqonayaa RAM-kiisu 8 buu noqonayaa waa 512 isna 200 buu noqonayaa okay laba xabo isna iibsanayaa okay macmiilkan wuxuu naga iibsaday laba laptop lacagtiisu waxay gaaraysaa $900 bay gaaraysaa waxaan doonaynaa macmiilkan wuxuu rabaa in discount loo sameeyo maadaama alaab badan uu gatay oo kombiyuutar qaali uu gatay midkiiba laba xabo uu ka gatay wuxuu doonayaa in discount fiican loo sameeyo okay waxaan tegaynaa halkan aan tegaynaa fanaxda ayaan taaban soo furaynaa dan waxaan leenahay add new baa leenahay add new dan waxaan sameynaynaa discount baan sameyn doonaa discount ayaan sameynaynaa waxaan sameynaynaa inaan khidmad qofka u sameyno okay waxaan leenahay saleska khidmada leenahay khidmada saleska ayaan wadanaynaa marka waxaan leenahay sales khidmada saleska marka iibka saleskiisa macnaha khidmada loo sameynayo weeye okay ama discountka loo sameynayo wax loo yaqaano iibka loo sameynayo waxaan leenahay English oo kale ku qoran karnaa sales discounts baa leenahay sales discounts okay dan description-ka halkan oo kale asaga oran kartaa waa khidmada macmiilka ama waan iska dayn karnaa okay halkan amount-iga inta aad u sameynayso boqolkiiba 20 ka dhig saaro kale boqolkiiba 20 baad ka dhimaysaa boqolkiiba 20 account-ka aan ku ururin doono waxa la leeyahay khidmada wuxuu noqonayaa sales discount okay dan waxaan leenahay okay baa leenahay okay marka boqolkiiba 20 baa ka go'aya marka boqolkiiba 20 baa ka go'aya boqolkiiba 20 baa ka go'aya marka 20 baa laga jarayaa 900 880 ayaa qofka lagu yeelanayaa lacagta lagu yeelanayo okay lacagtan qofka marka uu bixiyay oo 880 ayuu bixiyay 20 kana waa laga dhimay discount ahaan baa looga dhimay okay halka macmiilka waxaan u dhigaynaa fariin waxaan leenahay thanks for your business kana asiga oo ku mahadsan tahay halka waxaan leenahay memo-ga waa iibinta computer so marka waa iibinta ama sales computer la iibiyo baa leenahay sales computers computer la iibiyo weeye sales computers okay lacagtan marka waxay noqon doontaa lacag faa'iido oo income oo sales income oo ganacsigeenu qabtay oo laga qabtay ninka loo yaqaan Aligeedi dan waxaa leenahay save and close baa leenahay okay clipboard bin tegaynaa waxaan tegaynaa profit or loss bin tegaynaa dan waxaan tegaynaa profit or loss keena okay hadda net income-keena waxaa kusoo dhacday lacagta saleskeena kusoo dhacday waa lacag dhan $900 ay kusoo dhacday saleskeena okay discount-ka loo sameeyo qofka waa $20 adaa ugu soo dalacayaa waxayna ka goyn doontaa faa'iidada ay ka goyn doontaa aad iyo aad u mahadsantiin saaxiibayaal qaabkaas ayaa loo sameeyaa faa'iidada soo marka net income-keenu waa $380 weeye $380 oo faa'iido ayay joognaa iibka aan sameynay waa intaa $1350 bay sameynay okay lacagtaas waa lacag faa'iido oo la qaybsaday oo ganacsiga lagu kala baxay hadda net income $380 ayaan haysanaa marka laga jaro lafaha alaabta laga jaro soo lafaha alaabta marka laga jaro $500 waxaan faa'iido haysanaa 380
okay waxaan leenahay marka waxaan tegaynaa reportka waxaan tegaynaa balance sheetka ayaan tegaynaa okay balance sheetka ayaan tegaynaa balance sheetka markaan tagno net income-keenu wuxuu noqonayaa 380 ayuu noqonayaa net income-keenu noqonayaa okay haddii xagga itemka aan tagno alaab baa inoo taalay laptopisa so marka ka waxaa inooga yaalay 100 mid kana 100 mid baa inooga yaalay midkiiba 2 xabaa laga gaday marka saaxiib yaal sidaas loo process karayaa markaad iibka doonaysaan inaad ganacsi wax ka iibisaan ama qof macmiil wax ka iibisaan aad iyo aad ba mahadsantihiin